Guddida qaranka ee shaqaalaha rayidka dowladda Soomaaliya ayaa ugu celiyay wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye agaasimayaal uu dhawaan magacaabay. Wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu xilka hore uga qaaday 6 agaasime waxaana warqadda ka soo baxday guddida ay ku sheegeen in guddiga dalacaadda ee wasaaradda aanay u dhammayn tirada kooramka go'aan ka qaadan kartay sida uu qabo sharciga shaqaalaha rayidka ah ee u yaala dowladda Soomaaliya. sidoo kale qoraalka ay soo saareen guddida ayaa lagu sheegay in loo baahan yahay in dib u eegis lagu sameeyo nidaamka xilka qaadista iyo magacaabista iyagoona sheegay in xilka qaadista uu sameeyay wasiirka warfaafintu ay ahayd mid aan laga fiirsan. wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo isagu xilka qaadista sameeyay ayaa ilaa hadda aan ka hadlin warka ka soo baxay guddida shaqaalaha rayidka ah ee dowladda Soomaaliya kaas oo dib loogu celiyay agaasimayaal uu magacaabay. lama oga waxa uu wasiirku ka oran doonaa arrintan balse waxa cad in guddida shaqaalaha rayidku ay ka hor yimaadeen magacaabistaasi. Ciidaarus Magne wararka laanta afka Soomaaliga ee codka bariga Afrika Muqdisho.